Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil xalay fiidkii loo geystay mas'uul ka tirsan Hay'adda Qaramada Midoobay ee ka howlgala magaalada Gaalkacyo. Dilka ayaa yimid kadib markii kooxo hubaysani ay rasaas la dhaceen madaxii amniga Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsanaa maamulka Galmudug ee koonfurta magaalada Gaalkacyo ay ku toogteen xilli uu ka soo baxay salaada taraawiixda masaajid ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Kooxaha hubeysan ayaa waxa ay rasaas la dhaceen mas'uulkani, kaasoo lagu magacaabayay Maxamed Cabdi Kheyr oo ku magac dheeraa Fiimto. Marxuumka ayaa xilliga la dilayay ka soo baxay masaajid ku yaala magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan koonfurta magaalada Gaalkacyo, isagoo la soo tukaday salaada taraawiixda. Ayaa 3 nin oo ku hubeysan baaskoolado waxa ay la dhaceen rasaas xooggan, durbana goobta uu ku geeriyooday. Weli kama aysan hadlin mas'uuliyiinta maamulka Galmudug iyo laamaha ammaanka maamulkaasi oo ku aadan dilkii loo geystay Allaha u naxariistay Maxamed Cabdi Kheyr oo ahaa taliye sare oo ka tirsan Hay'adda Qaramada Midoobay oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug. Durba dilka kadib ayaa goobta waxa ay ka dhaceen waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Galmudug oo garabsanaya kuwa xasilinta magaalada Gaalkacyo, waxaana halkaasi ay ka bilaabeen baaritaano kuwaas oo ay ku baadigoobayaan ciddii ka dambeysay dilkii xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Ciidamada ayaa in muddo xiray inta badan wadooyinka waaweyn ee koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, halkaasi oo ay ka baadigoobayeen raggii dilka ka geystay koonfurta magaalada Gaalkacyo. Waa dilkii labaad ee mas'uul dowladeed lagu dilo magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Horaantii bishan Ramadaan ayaa waxaa magaalada Gaalkacyo lagu dilay taliyihii ciidamada xasilinta ee magaalada Gaalkacyo isagoo ka soo baxay salaada taraawiixda masaajid ku yaala waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Taliyahaasi ayaa lagu magacaabayay Khaliif Nuur Shiil, kaas oo kooxo hubeysan ay ku dileen waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Wararka kale naga soo gaaraya qeybo ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal beeleedyo u dhexeeya 2 maleeshiya beeleed xalay ilaa shalay ka dhacayeen deegaano hoos yimaada magaalada Dhuuso-Bareeb ee gobolka Galgaduud. Dagaalka ayaa yimid kadib markii labada maleeshiya isku qabsadeen dhul daaqsimeed ku yaala deegaano hoos yimaada magaalada Dhuuso-Bareeb ee gobolka Galgaduud. Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa maleeshiyaadkani waxa ay isku horfadhiyeen deegaano iyo degmooyin hoos yimaada magaalada Dhuuso-Bareeb ee gobolka Galgaduud. Dagaalkoodana ayaa ku saleysan dhul daaqsimeed, xilliyada qaar ay isku dagaalaan maleeshiyaadkani ku sugan qeybo fara badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud.